السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر بعده أرض بررسة كلية عالمية تسقط كورس يعني ميديكا تكنولوجيا 10 كسلوات إن قادن دونه دو إبوين كرا النقطة عنوان كقادن دوننا وروت حدد محلي هذا أن كبرنا 10 كاني كسر 10 كاني لوات أنت أنا أقول قليلا 10 كنا أن دب العسنة 10 كيلو صلاة في كوات 10 كروحان كسر برنا وحليره ميديكا تكنولوجيا sidoo kale waxaan ku soo baranay waxyaalaha aan isticmaalayno markaan rabno in ereyga terminology-ga ah ee inoo qoran markaan rabno inaan sheegno waxa uu yahay sidoo kale waxaan dulmar ku soo sameynay faa'iidada iyo wax walba uu leeyahay medical technology-ga marka basic-ga aad u badan u baranayso medical technology waa wax la yiraahdo root prefix iyo suffix combined vowel compound form hadaa la fahansan tahay erey walba kelmad walba caafimaad ayaa soo aruursanaysaa kadib bis adigu u baahan marka in kelimada medicalka aad taqaano English ahaanteeda wax lagu yiraahdo marka waa rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iideysateen haatan iyo 10 keeni aan guda galno root maxaa la yiraahdaa rootka hore soo sheegnay waa xididka yani ereyga asalka waxaa la yiraahdaa root misal fahmina ereygaas asalkiisa waxa uu yahay ayaa la yiraahdaa root saad arki doono waxa ka mid soo kale himad himad English aan waa blood waa dhiig laakiin lama rabo caafimaad marka joogto inaad dhahdo blood oo kugu ceeb adigu waa qof caafimaad soo bartay hadana ay isticmaasho in kelmadaha la isticmaalo adan aqoonina waa kugu ceeb midaas sida awgeed ee waxa dhahaysa mar kelmadda isticmaalayso waa inay noqotaa kelmad Greek ama Latin waa kaas oo himad dhiigaad u taagan tahay marka waa inaad taqaanaa kelmadda Latiniga English aan waxa lagu dhaho hadaa taqaano waad fiican tahay marka erey qaar jiro wano imaan doonaan insha Allah aan guda galnaa shirkan rootka contains wuxuu ka kooban yahay marka the meaning of the word macnaha ereyga kelmadda caafimaad qoran inaad fahanto macnaheeda waxa kugu muhiim inaad taqaano root waxa uu yahay midaas ugu faa'iideena labo maxay tahay frequently indicates a bad party goor had iyo jeerba ama si joogto ah ayuu ku muujinayaa kelmadan qoran qaybaheeda iyo sidaad u kala saaran karto tusaale ahaan hemad oo marka blood dhiig waxa meel ku maqashay koorsa la bixinaya oo hematology baa la baranayaa meel ku maqashay tusaale ahaan saan u qoranta hematology okay adigu waxaad taqaanaa ereygani oo hemad ataqaana maxaa taysata hadda root ayaa taysata xididkii ology maxay tahay oo arki doonaa markaan gaarno combined vowel isku madaalinayno hadda maxaad ogaatay erey markuu saan yahay waxa ugu horeeya aad qaadanaysaa laakiin bishardi waa inuusan perfect ahayn perfect waxyaalaha noqdo waa inuu imaan doonaan ayagana ha degdegin okay ana 10 dib ku celiyo waa himad maxaa laga wada waa luqad Latin macnaheeduna waa blood dhiig or mise maybe waxay noqon kartaa an action ficil ay noqon kartaa word root sidoo kale wuxuu noqon karaa ficil la sameeyo hadda muxuu noqday magac ama wuxuu noqday magac ale had markale wuxuu noqon karaa ficil la sameeyo caafimaad marka ku jirto qaliimada la sameeyo wax walba la sameeyo daawad qofkii baaritaanka la sameeyo waa ficilo hadan kama maaradid inaad taqaano medical terminology-ga tusaalahan waxyaalaha ficilku waa sis means loo jeedo tukad in wax la jaro marka wax jarayso xubin ama trauma oo buro waa arki doonaa marka jarayso waa inaad taqaanaa sis meel badan ku arki doontaa sis erey marka maqashana kat in wax soo xasuuso word roots kelmadaha xididada are usually derived from badana waxa laga keenaa waxay yihiin Greek or Latin oo isku mid oo marka in hadhow English aan la isticmaalinin dhakhtarka marka hore wadhoodi in wax markuu jaray tusaale ahaan wuxuu jaray qayb ka mid naaska qofkaas maxaa loo sameeyay waxa loo sameeyay markaasi in la jaro maxaa la isticmaalay kelmadda sis adigu kormarsiinay wax jartay traumatis sadada marka waa in la jaray buradii okay Greek word muxuu yahay cardia yani sida u qoran yahay waa Greek word luqadda Greek markaas loo bedelay كلمات عافمات كودا دحيسا wax walbo dadka walbo Latin ka wada hadla sida Soomaali ku jirta Latin aan wax qoran maxaan waxsaan u bilowday Latin wax inta aan soo bilaawno waa Arabi marka cardia ayaga dadka Greek ay u yaqaana
si marka caam looga dhigo ama si looga dhigo guud ahaan waxaa loo baahan in la isticmaalo kelmad gaar ah dad walbay ka sameyn yihiin markaasa keeda laga bedelay waxaa laga dhigay c oo ah cardi maxaa loola jeedaa heart wadno gastro waa dadka Greegsa u qoran taha laakiin lama rabo marka caafimaad isticmaasho midda Greega inay isticmaasho waxaa la isticmaalaysaa unionka midowga loo sameeyey ee kuwada isticmaalaan dad walbo dunida ee ku jira majaalka caafimaadka oo ah marka gastro inaan dhan maxaa laga reebay iidaasa laga reebay maxaa loo jeeda stomach calool hadda kadib adigoo ah arday caafimaad baranaya ama ka shaqeeya goob caafimaad ha isku dhihin stomach barajina inaad talaasi la qaadatay hebar waa baarka yaa u yaqaano Greega dadka u dhashay si dadkoo dhan u wada isticmaalana maxaa laga dhigay hibat micneheesu liver bear osteo osteon oo ah bone laf yaa u yaqaano dadka Greega u dhashay laakiin luqadda caafimaad ahaan loo isticmaalo maxay tahay osti ama osteo oodaas hadda kugu madaalinayo oo imaana libax ama libaxad okay rootka afirin marka waa medical terms waa kelmado caafimaad usual badana have leh one or more roots erey walbo caafimaad ama kelmado walbo caafimaad aragto waxay leeyihiin hal iyo in ka badan xidido yacni muhiimadu ereygu ku taagan yahay badanaaba waa rootka waxaa la isku qaldaa root iyo perfect waana imaan doona perfect way tusaalaha in the term ereyga gastroenterology ayaa laga rabaa inaad kala dhigto si kuusoo baxdo wax muhiima hadda anagu dhiga kugu madaalinayne ee qayb kaliya ku siinayna oo ah rootkana soo saarno waa gastro kow oodaas maxay tahay waa inoo dambeynaysaa ha isku daalin intro waa root haye intro ande oodaas maxay tahay kugu madaalina waa inoo imaan doontaa gastro hore usoo barno waa stomach introna waa intestine mindhicir isla fahmi intro waa intestinal buga waa inoo soo diri doonaa cafwan laydinma soo dirin cashirkan kadib markaan lasoo diri doonaa soo baxsada ku dul qor erey walba adigoo erey walba xifdisan guriga ila aad meesha jaamacadda ama goobtaad ka shaqeydo maxay yihiin gastro intro maxay yihiin waa root logi oodaas maxay yihiin waa noo imaan doonaan some medical terms ereyada caafimaad qaar are built without waxaa la dhisaa word root ayadoo la isticmaala ayaa ereyada qaar la dhisaa eg tusaale ahaan hyper oo ah perfect ma aadan gaarin kuguma daalinaya aan ka socona bis hyper mina loola jeedo excessive dheeraad aye trophy oo ah suffix weeye kuguma daalinaya waa noo imaan doonaa waa meaning development laakiin kelmadda baro hyper waa wixii excessive dheeraad ama sare u kacsan ayaad hore u barata fila markaa barinaysa caafimaadka bilowga waxay la mid ah hypertrophy waa laiskugu dara fiiri hadda lama isticmaalo word root lama isticmaalo waxaa la isticmaalay perfect iyo suffix hypertrophy waa excessive development in qof koriinsho degdega uu sameeyo ayaa waxaa la yihahdaa hypertrophy ayadoo weynaanaya qanjirada qaar qanjirkan qaar haddii qanjirku weynaansho zaid uu sameeyo maxaa dhahaysaa hypertrophy hadhihin a big organ waa ceeb kelmada caafimaad baro waa ku muhiim okay a single word hal erey a single word root hal kelmad xidid ah cannot stand alone kaligeed ima istaagi karto waa muhiim meel ku qoro kelmada caafimaad in kaliya la isticmaalo root kaliya in la isticmaalo ma shaqaynayso maxay u baahnaanaysaa perfect ama suffix ama vowel ay u baahnaanaysaa hadda vowelkan baran rabnaayo owd hadaa barano suffix hor gadaalgaluhu is combining waxaa raaca vowel shaqal ayaa raaca oo mis ay midkood oo noqon kara kaliya must be added waa in lagu daraa to complete the term si uu ereyga u dhamaystirmo maxaa naanay word rootka kaliya ma istaagi karo micnana ma dhalin karo asigoon helin suffix gadaalgale ama vowel hadda vowelkan baranayna xarafkan oo aa ujeedo waa vowel wuxuu isku xiraa horena usoo barnay word root iyo wuxuu isku xiraa word root laba word root isku xiri karaa waa maya mahano wuxuu isku xiri karaa word root suffix ku xiri karaa sida hematology maxay tahay process of study of blood waa barashada dhiiga hemat hore usoo baranay waa dhiig oo waa vowel si kan waa suffix hadda logi gadaalgale waanu imaan doona laakiin hadda kuguma daalina weli laakiin ugu in labadan hematology lama dhihi karo waa inay quruxsanata hematology okay waxaa kaa rabaa inta kuusoo celiyo haddii kaas saas nala sii buugi gastroenterology maxay tahay waa kana fiir gastro iyo intro waxaa soo sheegnay root gastro root maxaa isku xiray oodas gastroenterology okay
inter waa calool, login waa suffix, kan waa word root, login waa suffix. maxaa isku xiray others enterology iga daa ciyaarta hore u socono. Combining vowel of forms, xarafka o ay hadda baranaynaa in concept good. xarafka o haddaad hore u taqaanay keliya inuu hayay hal xabo oo ah laba shaqo oo ah in laba root isku geeyo iyo root in suffix ku geeyo. To make a medical term easier to pronounce, inaad samayso kelmad caafimaad ee aad adna kuu fududa inaad ku dhawaaqdo, a combining vowel shaqalka xarafka o-ga ah is added ayaa lagu daraa to combine si isku keeno two word parties, laba eray kala duwan inuu isku keeno. muxuu isku keenaa o-gaas? maxay shaqada qabanaya? kow, between wuxuu udhexeyn karaa two word roots, laba root. sidoo kale between wuxuu udhexeyn karaa word root ayuu udhexeyn karaa and suffix ayuu udhexeyn karaa, horgale iyo gadaalgale iyo gadaalgale iyo word root ayuu isku xiri karaa. Combining vowel xarafkaas o is most badanaa commonly wuxuu caan ku yahay the letter o ayaa badanaa la isticmaalaa. sometimes waxaa la isticmaalaa I keedkaaga ku darso. A word root ereyga asalkiisa xididka ah with combining vowel lagu daray combining vowel is called ayaa waxaa la yidhahda combining vowel iyo combining form maxay kula duwan yihiin? combining vowel waa xarafka o, combining formka ay tahay labada wax isku geeyay. iga daa ciyaarta maskaxda inaad ka dhambaysan kartaa rajeyna insha allah. okay, Egypt tusaale ahaan ebel waxaa soo banay cardi ay ahayd, hadda ooda maxaa loo keenay? haddii aad maqasho cardi cashirka horaa loo soo qaata buuga bejhor hore waxaa loo qornaa cardi bis, waxaa loo qornaa hard ayaa ahaa. okay, Greek ahaan waxay u yaqaaneen cardi, saan ayay u yaqaaneen si dadka u wada fahmaan ayaa laga dhigay cardi saas. okay, haddii la dhaho marka aad ka tirna kuwan, haddii la dhaho cardi ama cardio waa isku mid. sababta maxay tahay? weliba slash udhexaysi ama slash la-aan waa isku mid. sababta maxay tahay? in hadda maxaan haysanaa word root haysanaa. word rootka waa inuu diyaar u yahay inuu ku xirmo word root kale ama inuu ku xirmo suffix. si loo helo marka word root mar walba wuxuu ku xirmaa suffix ama word root kale. si iskugu xiro waxaa qabana hawshaasi oo ah combining vowel. haddii saan isku wada raacsan yihiin cardio slashas aan ka saaro, maxay tahay hadda sidaan? waa word root iyo combining vowel. markaasaa isku qabtaa marka waxaa la yidhaha combining form ayaa la dhahaa keliya halahan. combining vowel inaad garataan rajeynaya libax ama libaxad. okay, cardio ama waa kana isku mid, slash ka bixi cardio waa isku mid. hemato ama hemato waa isku mid. hadda maxaa loogu magac daray kan? magacii word root-ku ka baxay, magacii combining vowel noo ka baxay, waxaa la yidhahdaa combining form. horan kuusoo ku celiyo, a word root with a combining vowel is called a combining form. word root hadduu raaco xarafka o waxaa la yidhahdaa combining form oo ah qaabka isku geynta. waa la isku geeyay halowd ma dhehaysid kala saar marka lagu dhaho bis aad u baahanaysa inaad kala saarto. combining vowel between word root and suffix udhexeeya ayaa tusaale uqaana. if the suffix kani waa noo muhiim, cashirka dambe ayaan ka dhigan doonaa hadduu ilaah karaal noqdo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.